Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ahaa oo qof naftii haliga ahaa uu isku qarxiyay aagga isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ku dhow baarkii hore ee baar bulsho oo ay haatan degan yihiin dad barakacyaal ah kuwaasi oo khasaaraha qaraxa ka dhashay uu gaaray. Mid ka mid ah goobjooyaasha ku sugnaa goobta qaraxu dhacayay halka ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen. gurigaaga bax ka soo qaday aabana intaan guriga soo gaarna waxaa dhacay wax qarax oo ag masana inay cirka ka kaceen dhulka aan kale ka sii waayay sawaxankiisa aad aan u la yaabay isla markii aan saan dhex maagana waxay indheeyga qabteen oday waayeela islaantii uu qabay igaar ee dhashay oo yariisa isla markii aan isbitaalka u cararnayna igaarka nafti way ka baxday isbitaalka daqiiqada ka bacdi haddana hooyadii nafti ka baxday intaas soo muujiso la yaaba maanta la kulmay inta aragtida hal qoys oo waxaan ka arkay saddex oo hal qoys kaliya oday igaarkiisa islaanta uu qabay inta kale wallahi ma si aqoonsan kar wax badan ay ahaayeen. Saalax Dheere oo ah hafayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in qarax ay ku dhinteen 3 qof iyada oo 6 kalena ay qaraxaasi ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa 3 ka mid ah waxay ahaayeen isku qoys waxaana ay geeriyoodeen kadib markii dhaawacooda isbitaal loo qaaday. wayna ilay raajicuun maanta runtii meeshan waxaa ka dhacay waxaan hore loogu baranin oo runtii ah wax nagu cusub in qof naftii haliga ah uu halkaan oo ah goob shacabka ka wada dhaxayso oo suuq yara ku yaala shacabkiina halkaan ay joogeen inuu qof naftii haliga ah uu soo dhaxgalay uu nafsadiisiina haligay shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay inta dhaawacantay la xaqiijiyay waxay gaarayaan ilaa iyo 6 qofood 6daas qofoodna waxaa ku jira 4 qofood oo hal qoys ah halkaas qoysna hadda waxaa na soo gaaraya in markii la geeyay goobihii caafimaadka ay 3 qofood oo ka mid ah qoyskaasi ay geeriyoodeen ilaahay ha u naxariisto jannada Allah ka waraabiyo runtii tani waxay muujinaysaa in kooxaha argagixisada ah ee diidan amniga dawladnimada iyo nolosha diidan ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay halkaasi.